Assalamu alaikum. Daawadayaal soo dhawaada. Welcome. If anybody's here, say hi. Masteha soo dhawa bye. Thank you for waiting. Soo dhawaada. Hi. Aisha. Kulligii soo dhawaada. Xogaa doorashadii way dhamaatay but I wanted to little bit intaan soo galo idin sharaxo but xalay maadaama xogaa ka yara seexday little bit saan u sugay hadda wax soo baxayn saan isu dhahay nothing came out and marka taas waa idinka raaligelinaa but today imaatay marka alhamdulillah finally it's over soo gala and we're gonna wait a little bit haddii ilaahay idmo zamzam soo dhawa bayo dadkan maybe 2-3 minutes siinayna ka bacdi and aan hadalka bilaaba haddii alla idmo I want inaan idin sharaxo meeshay hadda wax marayaan waxa la filan karo Donald Trump siduu u dhaqmooyo meeshay sheekada u socoto all of those things inaan idin yara sharaxo aan rabaa haddii ilaahay idmo thank you Abdisalaan my biggest fan thank you guys Abdiqaadir Nimca Abdi soo dhawo abaayo soo dhawaada kulligiin and soo dhawaada dadkan waxay sugaynaa little bit ka bacdi waa ka baxaynaa haddii alla idmo warka galaynaa in ka wadaa yes a little bit so saakay markay give it like 5 seconds dadka couple they coming in hadhow dadka they always say maxay xagee muxuu ahay to Jamiila ku soo celi hadalkaas so we're gonna maybe make 2-3 minutes ka bacdi aan bilaabaynaa haddii alla idmo give it like 2-3 minutes so and saakay 11:20 camal inay ahayd ayaa Pennsylvania lagu dhawaaqay Pennsylvania waxay ahayd meesha ugu weyn oo ugu muxuu ahayd codadka badan I mean electoral votes ka 20 ayay haysatay marka Pennsylvania la'aanteed Joe Biden wuu guuleysan karay hadduu gobolada kaleeto uu hogaaminayo sida Nevada uu hadda uu heli lahaa iyo gobol kaleeto laakiin one thing was madaxweynahana wuxuu intaas dhan ka qaylinayay uu la dagaalamay ayaa waxay ahayd Donald Trump without muxuu ahayd Pennsylvania ma guuleysan karin because wuxuu haystay 213 ninkana wuxuu haystay 253 so 253 20 ku dirtid waxa waaye 273 ka bacdi hadda waxa ku soo darsantay meeshaan la dhaho Nevada waa gobol aad u yar waraaqa lagu codeeyay waqti dheer ay qaateen sababtoo doorasho saan oo kale la isugu haysto hadhow way kugu soo noqonaysaa marka intaa daahdid every single thing soo xaqiijisid oo eegtid muxuu ahayto waxa yihiin sababtoo berri haddii maxkamad la isla aado way kugu soo noqonaysaa gobolkaas adi madax ka tahay gobolka adi xukuntid gobolkaas adi joogtid oo kale way kugu soo laabanaysaa and that's why intooda badan ay muxuu ahayto waqtigood u qaadanayeen sababtoo waa la isku haystay marka waxaa la doortay Joe Biden waa madaxweynaha la doortay wuxuuna xilka qabsan doonaa January haddii alla idmo waxaa kaloo ayadana muxuu ahayto talaabo aad u weyn in qof dumara ee wadanka markii koowaad ay ka noqoto vice president dumara ahay dumarka oo dhan that's guul weyn ay u tahay also gabadhu waa madow haddana hindi qof oo muxuu ahayto isku jirjiroon cadaan kaliya aan ahayn the other thing aan rabay inaan ka hadlaa wuxuu yahay laba gobol oo wadanka ku haystay xaraan oo like you can say that doorashooyinka ku haystay xaraan oo dhigi jiray anaga la'aanteed cid la dooran karaa ma jirto labadaas gobol oo laga gudbay ayuu Mareykanka go'aan gaaray which is like waxay u tahay
guul weyn ayay waxay u tahay dadka aan cadaanka ahayn oo wadanka degan sababtoo ah labada gobol waa Ohio iyo Florida. Ohio markii ugu dambeysay aysan madaxweyne aysan dooran uu madaxweynenimada qabsado waxay ahayd 1960 ayay ahayd waxay doorteen Nixon oo ahaa ninkii laga ceerin doono hadhow shaqada waxaana muxuu ahayd markaas muuse qabsan Kennedy ayaa qabsaday marka labadii gobol oo wadanka hortaagnaa oo ay ku badnaayeen cadaanka waliba cadaanka reer baadiyaha ay aad ugu badnaayeen oo wadanka dhahaayay anaga ayaa waxaan u nahay horjoog anaga ayaa xukunaa anaga muxuu ahayd qof aan ahayn wax ma dooran karo in laga gudbay that tells you taas waxay muxuu ahayd hordhacay u tahay oo ay saadaalinaysaa Mareykanka inuu isbedelay Mareykanka inuusan muxuu synonymous ama uusan kulli faaqnayn cadaan kaliya ah Mareykanka inuu diimo kala duwan leeyahay dad kala duwan ay degan yihiin oosan cadaanka dhulkoodii kaliya uusan ahayn anymore markoodii horena odagaan a lot of them ma jecla the whole reason ay ugu dagaalamayeen ay u qaylinayeen ay la qarracleynayeen ayaa waxay ahayd inuu wadanka gacantooda uu kasii baxayo oo wadankii uu isbedelay oysan ayaga muxuu ahayd aysan horjoog ka ahayn America inay shifting sameynayso oo muxuu ahayd horumar ama dhaqaaq ay sameynayso dhaqaaqana uu dhankan ka soo dhaqaaqayo oo dhankan kale ay u socoto sheekada ayaa muxuu ahayd ay taas cadeynaysaa Donald Trump wali muusan dhihin waa laga guuleystay laakiinse sida markastana wuxuu ku andacoonayay oo ku qeylinayay oo oranayay muxuu ahayd doorashadii maalintii dhaweeto markii uu khudbeynayay uu yiri doorashada waa nala ka xaday one thing ay sameeyeen idaacadaha sababtoo idaacadaha wax badan ayay gaaraan mas'uuliyad ayaa saaran markaa warsheegay sidoo kale ku saaran way ka qaadeen muxuu ahayd kaamarada oo muxuu ahayd diiradda asaga waa laga qaaday oo way hadleen markaas waxay dhaheen madaxweynaha muxuu ahayd waxa uu sheegayo waa wax falsa ah oo aan jirin oo raad aan lahayn oo cadeyn loo haynin maadaama aan cadeyn loo hayninna waa ka wareejinaynaa asaga diiradda sidaas darteed ayay ka qaadeen marka halkaas ayay sheekada mareysaa madaxweynaha cusub markii uu muxuu ahayd qorshihiisa gaarayay madaxweynaha maanta la doortay oo uu muxuu ahayd ajandihiisa uu dhigayay oo uu muxuu ahayd wuxuu ku xisaabtamayay inuu labada aqalba asaga haysan doono marka sida ay hadda u eg tahay haddii aysan wax ka soo bixin doorashada Georgia oo lagu celin doono oo muxuu ahayd January lagu celin doono haddii alla idmo doorashadaas haddaysan wax ka soo bixin oo wax weyn aysan iska bedelin su-aasha ayaa waxay tahay muxuu qaban karaa Joe Biden because Joe Biden kaligiis muxuu ahayd wax talaabo uu qaadi karaa aad u fara badan laakiin talaabada uu qaadi karaa ayaa maxay intay gaarsiisan tahay waa su-aasha sababtoo ah labada aqalba asaga ma haysto labada aqal markuu qorshahan soo gaaraya waxay ahayd kan hoose anaga haysano kana waa dabagadinaynaa ninkan kursigan ka qaadanaynaa wadanka hore ha loo dhaqaajiyo aan hore u dhaqaaqno marka hadda marka maantay su-aasha hortaagan muxuu ahayd Joe Biden maadaama la soo doortay xilkan uu January qabsan doono ayaa waxay tahay maxaa qaban kartaa adoon muxuu ahayd nimanka sharci dejiyaasha ama sanadka ah aan haysan lacalla inuu helo sanadka which is big lacalla aad u weyn waaye oo muxuu ahayd lacalla aad u fara balaaran ah travel bank waa ka hadli doonaa haddii alla idmo waxyaabihii uu ballan qaaday muxuu Joe Biden ballan qaaday ayaa waxa kamid ahaa immigration reform inuu sameyn doono uu immigrationka wax weyn ka qaban doono inuu lacagta wadanka ugu yar oo looga shaqeeyo oo muxuu ahayd $15 oo minimum wage-ka uu kordhin doono lacagta ugu yar oo qof la siiyo inuu badin doono waxaa kaloo kamid ahaa wixii kale muxuu ahaa dhaqaalaha inuu wax ka qaban doono oo muxuu laakiin dhaqaalaha uu wax ka qabanayo muxuu ahayd waxa ka horeeya cudurka wadankii cudur ayaa ka jira cudur ayaa Mareykanka literally halaagaya Mareykanka intaan wax ka dila waligood maysan arkin taas ayaa muxuu ahayd markii horeba uu ballan qaaday in boqolkiisa maalmood ugu horeysa uu immigrationka dhaqaalaha employmentiga caafimaadka wax ka qaban doono laakiin suuq ogow wuxuu ku xisaabtamayay inuu haysto asaga labada aqalba uu asaga haysan doono ayuu ku xisaabtamayay
marka maadaama uu taas ku xisaabtamayay aysan dhicin haddii lacala aysan doorashada Georgia ka imaanaysa aysan waxba bedelin asaaseed su-aasha waxay ku noqonaysaa muxuu qaban karaa ninkan la dhaho Mitch McConnellna muxuu ahayto darbi weyn ayuu muxuu ahayta yahay Mitch McConnell wuu yaqaanaa sida muxuu ahayto wax loo caqabadeeyo wax loo celiyo wax darbi kore loo saaro sababtoo ah remember markii ay muxuu ahayto Scalia uu dhintay uu ka dhintay muxuu ahayto maxkamadda sare wadanka oo uu rabay Obama intuusan bixin inuu qof ku bedelo kursiga uu Gorsuch qabsan doono hadhowti la siin doono ninkii hor istaagay oo wax walba sameeyay inuusan Obama muxuu ahayto uusan muxuu ahayto magacaabin muxuu ahayto xaakinka ka talin doona muxuu ahayto maxkamadda sare wadanka ayuu qabtay wuuna sameeyay haddana muxuu sameeyay Donald Trump ayaa wuxuu siiyay 30 maalmood inuu soo saaro muxuu ahayto xaakin cusub oo naagtii waa tii loo dadajiyay weli Mareykanka qoftaas loogu dadajiyay lama arkin it's way hadda ka hor mar I think inay dhacdo maleyna laakiin it's kana process dheer qaadataa in qofka inta la soo doorto la qabto muxuu ahayto la soo baaro su'aalo badan la weydiiyo you know haddana waxa intaas oo dhan ay sameeyeen ayadoo wadankii cudur uu ku habsaday marka also yes Obamacare wuxuu ballan qaaday in uu ku dari doono wax la dhaho public option oo dadweynuhu waxay rabaan inay gadan karaan ama ay iska dhaafi karaan qaybtaas inuu ku dari doono Obama oo in Obamacare qaybtaas inuu si balaarin doono oo muxuu sababtoo ah Obamacare ka iskanava literally dadka qaar wuu celinayay sababtoo ah kambaniyada ku hoos jiro oo Obamacare ka soo hoos galo laga gato caafimaadkana kambaniya saas u si fiican maysan ahayn inuu wax ka bedeli doono ayuu ballan qaaday marka waxyaabo badan uu ballan qaaday laakiin su'aasha ayaa waxay tahay muxuu qaban doonaa nin kaligiisa laakiin remember madaxweynuhu waxyaabo badan buu qaban karaa wax ugu koowaad oo laga eegi doono muxuu ahayto Joe Biden ayaa waxay tahay cudurkan sidoo xasilin lahaa shaqo aad u weyn oo taala beenta ma fiicno Mareykanka dad aad u fara badan 200 iyo jajab Mareykana ayuu muxuu ahayto dilay cudurkan wadankii ku sii balaaranooya dhaqaalihii wadanka dhulka ayuu sii galooya shaqooyinkaas inuu qabto uma u baahna muxuu ahayto labada aqal uma baahna marka taas also wadanka aad buu kala jabsan yahay in wadanka sidee uu isugu soo celin doonaa sababtoo ah Donald Trump kaligiis ma ahayn Donald Trump astaan ayuu wuxuu ahaa cudur jira cudurka asaga ma ahayn symptom ayuu ahaa Donald Trump dada ka dambeeyay dada soo doortay dada daba taagnaa marka Donald Trump dadkiisii sidee buu ula dhaqmi doonaa sababtoo ah kulligood Mareykanka ay ka tirsan yihiin xumaan iyo wanaag intaba kulli Mareykanka ay ka tirsan yihiin marka taas is another thing oo asaga lagu eegi doono maanta muxuu ahayto ayaa ugu horeysay November 7 ayuu qabsaday uu soo galay dowladda maxay tahay 1976 kimeed 74 I'm not sure 46 years ago ahead exactly 46 sano ka hor ayay ahayd maanta ayay ku beegan tahay sanad guuradeeda maanta ayay ku beegneed which is amazing mid kale markii saddexaad uu isa soo sharaxay ahayd markii saddexaad ayuu muxuu ahayto ku guuleystay that's another thing marka a lot of things ayaa muxuu ahayto ayaa sugaya Joe Biden another thing I know inina dadkiina immigrationka iga baranin ayadoo uu Obama joogo laakiin Obama markii loo eego yes travel ban muusa soo saarin laakiin Obama markii loo eego immigrationka wuxuu ahaa one of the worst presidents oo immigrationka xagiisa ah dadka ugu xun ayuu ahaa yes 72 ayay ahayd ayuu ahaa ninkan Obama legacygiisii ayuu ku taagan yahay so immigrationka muxuu ka qaban doonaa you know dadka inaad wax yar oo taagan inta meesha ooda ka qaado laakiin gadaalna aad dabka ka sii shido that's one thing oo aad kala duwan marka berri marka intaan soo galo idin dhaho Jamilo idin dhahdo muxuu ahayto madaxweynihiisaan uu sameeyay ay dhihina
maxaa uga soo horjeedaa maxaa saana la sababtoo ah ani mar walbo I just like to report the stories waxa jira inaan sheegaan jecli inaan wax ku daro ma jecli inaan wax ka dhimana ma jecli I'm just giving you background Obama wuxuu ahaa markii loo eego madaxweynayaasha Mareykanka dadka ugu xumaa xagga immigrationka Obama dawladdiisa waxay muxuu ahayto wadanka ka saartay more than anybody else wadanka ka saaray deportation ay ku sameysay tarxiil ay ku qabatay marka ninkan Obama la shaqeyn jiray immigrationka muxuu ka qaban doonaa I think aniga shakhsiyan inta uga habisanaan doono and Biden it will be maalmahan ay ku ekaan doontaa anyone uu ka fiicnaa Donald Trump that was the reality ga saas ayay ahayd marka let's see waxa uu qabto odayga laakiin shaqo aad u fara badan ayaa u taala marka midda kale waxaa kaloo ayadana xusid mudan in odaygan wuxuu ka haray dimuqraadiyadii hore dimuqraadiyadii 40-50 sano ka hor jiri jiray oo ka duwan xisbiga jamhuuriga laakiin aan zaid uga duwanayn oday weyn waaye 70 jajabo jira 80kii ku socdaa iyo dimuqraadiga cusubna waxa waaye sida gabadha laga soo doortay New York oo kaleeto maxay Ocasio-Cortez gabadhaas waa dimuqraadiga cusub waxa waaye odaygii asna waa yeelka ahaa muxuu ahayd Bernie Sanders waa dimuqraadiga cusub marka labada dimuqraadiga midna xag jirka zaidka uu yahay far leftiga uu yahay oo sida Ocasio-Cortez oo kaleeto muxuu Bernie Sanders oo kale ay manhajkaas haysta iyo odaygan lead kale ka tirsan yihiin asaga iyo habarta haysata aqalka afayeenka u ah Nancy Pelosi waxay ka tirsan yihiin dimuqraadigii hore marka su'aasha ayaa waxay tahay sidee xisbiga gudihiisa uu u shaqeyn doonaa I believe aniga ayaga lugta istiri doona siyaasadda haddii ay astaan samayso astaan ay leedahay astaanta ayaa waxay tahay labadan muxuu ahayd manhaja ama labadan ra'yi aad ayay u kala duwan yihiin marka labada ra'yi sidee bay isula shaqeyn doonaan dhalinyaro dad cusub ayaa soo baxay ninkan waxa uu codeeyay dhalinyarada muxuu ahayd progressive-ka ah oo muxuu ahayd Bernie Sanders dadkii ka haray oo Ocasio-Cortez dadka lamidka ayaa u codeeyay oo soo saaray midda kale madowga u codeeyay period in Mareykanka wax badan ayuu cadaanku la dagaalamay madowga codkooda in loo celiyo gadaal waxay ka baqaayeen maanta kor taagan yihiin sababtoo ah magaalooyinka u codeeyay oo muxuu ahayd doorashada dhan dabagadiyay waxa ku badan madowga Milwaukee muxuu ahayd Detroit meesha la dhaho ayadana Philadelphia Philly all of them waa magaalooyin madowga ku badan yihiin ayaga cadaankii baadiyaha joogay ku dabagadiyay sheekada marka all of those qodobada muxuu ahayd maalmaha soo socda kala bixi doona also Donald Trump xafiiska ma ka tagi doona oo muxuu ahayd mise waa laga jiidi doona oo Secret Service-ka ayaa jiidi doona that's another thing in la fiiriyo sababtoo ah dhaqanka wadanka jira ayaa wuxuu yahay in madaxweynaha cusub lagu marti qaado aqalka oo madaxweynaha sii baxaaya uu marti qaado oo transition team ay samaystaan team noocaas oo muxuu ahayd laga wada hadlo sidii xilka loo wareejin lahaayo kaleeto taas in laga hadlo Donald Trump it looks like dadkiisa inay waxyaabo aad u fara badan ay burin doonaan oo dhaqanka daba mari doonaan that's another thing marka let's see Donald Trump in aqalka laga jiiday inuu si toos uga baxo midda ay ku celcelinayaan oo ah doorashada waa la xaday wax cadeen ay u hayaan haba yaraatee ma jirto odayga marka madaxweynaha la doortay caaw hadli doonaa haddii alla idmo wuxuu yiri 8 baan hadli doonaa haddii alla idmo marka mar labaad caaw soo noqonaa khudbada ayaan idin sheegaa wuxuu yiri iyo wixii sheekada waxyaabuhu ballan qaaday that's the thing muxuu doorashada ugu hore khudbada ugu horeysa qabta ayaa waxay tahay muxuu ballan qaaday wuxuu sheegi doonaa hadhowtiya marka waxa ku noqonaysaa buugii aa qortay saana leedahay waxa leedahay okay waxaanu shalay marti ballan qaaday saanu yiri maanta muxuu qabtay that's what you do like maanta muxuu sameeyay muxuu qabtay it's not just in iska taayeen muxuu ahayd taadhada oo madaxweynaha saanu yiri no it's not like that in madaxweynaha laftirkiisa accountability loo sameeyo Nevada while back ku guuleystay laakiin Nevada mar lagu kala baxay ayuu ku guuleystay marka caawa ayuu khudbayn doonaa asaga iyo gabar madow muxuu ahayd hindi ka soo jeeda you know a lot of things oo haweena
inay markii koowaad ee wadanka ay ka noqoto madaxweyne ku-xigeen. That is big. Like people sida anigoo kale haweena ahay, you know, that's something haweenka dhan ay aad u eegayaan oo guul aad u weynaa usoo hoyatay. Marka caawa ismaqli doonaa haddii aan la idmo markuu madaxweynaha la doortay uu hadlo president elect uu waxyaabaha uu sheegay qodobadu ka hadlo. markaas ka bacdina wiigaga soo socdo, bilaha soo socdo, sanadaha soo socdo haddii aan la idmo dibaa mar walba ugu noqonayna. waxaan leenahay saanu maalinkii yidhi maanta muxuu sameeyey. خير فربنا لا يرجعنا. السلام عليكم.